وانكسياي سند وليبا وديو حوليو ديباتيو وحو هدي مليهاي وانكسياي سند وليبا وديو حوليو ديباتيو وحو هدي مليهاي والله هلايو ودلقو حسوستا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سند وناكسن إلهي سند كسند كيسا بش يبر واقو هينقو قارسيو. سند كان وحندين هيا برنامج كاره اون هبو inaad ka wada heli doontaan idinkana qoslin doono waxa marti noogu ah cilmi jaamac maxamed oo loo yaqaano cilmi daadshe kana caana dhulka ay Soomaalidu degto cilmi sanad wanaagsan waan saaxiibkii qaali oo salaamay sidoo kale boqolkiiba boqol shacabkeena sidoo kale waa salaamaya cilmi sanadka cusub maxaad ugu tala gashay taageerayaashaada dadka afka Soomaaliga ku hadla ee daafaha dunida ku sugan صاحب غالي horta waan mar labaad baan islaamay idinkii shacabka idaawanaya saxaafadda aadka u dheeraysa ee social media Soomaaliyeed waana idinku mahad celinaya qaabka suugaanta Soomaaliyeed ee majaajilada Soomaaliyeed oo horumarinaysaan maadaama aad igu soo booqateen magaalada Garowe waxaan ugu talagalay sanadkan cusub Ilaahay barkadiisa iyo khayrkiisana siiye waxa soo baxay qalab elektroonig ah oo aan ugu magac daray anigoo abaan cilmi daasha ah caawiyaha jacaylka oo ay qalabkan elektrooniga wuxuu aad u caawinayaa ama wiil gabar jecel ama gabar wiil jecel ayuu aad u caawinayaa qalabkaas waa qalab aad u yar waxa la gashadaa halka dhigta ah korkeeda telefoonkan wuxuu kala shaqeynayaa masaafo aad u dheer qalabkaas markaan u bixinayay dhalinyaro waxaan ku ii magaciisa ii sheegay waxay yiraahdeen waa bluetooth waxaan ku dhawaaf English Soomaaligeeni haysta anu waxaan u bixiyay igu dhuh halkaas waa headphone way shaqeynaya wireless way marka caawinta jacaylka uu caawinayo igu dhurtu waa ii sheekay aan ku dhageystay way laakiin caawintu jacaylka caawiyay asbaabaheedii baa la weydiiyay seebo caawiyaa baa way marka waa calaad jeebik ana soo samaystay dadkan waxaan rabaa inaan uga dhigo wax dhici kara weeydi sax ah gabar ayaa waxay ku noolad gurigoodii waxay shaqaynsan jirtay wiil aad u jeceshahay oo dhigta jaamacadda Vision International College oo magaalada dalka ay ku taal wiil bay shaqaynsan jirtay wiilkii waa la sheekaystaa odaga aabaheeda mar walba wuxuu dhahaa naaheede waa maxay macaanowdan iyo xabiibida ee balada ka yeelaysa markaasay maxaan saa u yeelay maasajii u bedesho wiilkii wuxuu dareemay maasajkii ay gabadhu soo direysay serialka ahaa ee jacaylka ku saabsanaa in ay cabsi jirto xagga waardiinta ka iman karta wuxuu u soo goday inta meel elektrooniga tagay dhigta bahalka la gashado oo hadda earphone ku sheegaya wireless khadki gabadhi dhigta u suran yahay odaga aabaheeda wuxuu go'aan ku gaaray inuu salaad cishaha aadin oo guriga ku tukado si uu gabadha istaanbi waardiyo uga qabto ilaan intii dhayo ciidan soo wacday tiri salaadii markuu cishaha asagu aqintay guriga dhexdiisii oo uu salaadii Allahu akbar oran rabo gabadhi la soo wacay هيا حبيبي مركي تيجي التليفون كنت سلادة كبح كسو قاضي جبدي هرتي سو دكت وحقوق بعض وقت إنا ما كسويها جبدي بربي قصي حاجة اللي يستكتر وبربي تري الشكل اللي واسعتها شعيل كوحة عوية أنا ركرة إيرفون كان وايرلس ويا شكلها إنه هالها تجمع علمي بالمركه هو واحد يشكتها هالكات كبر بارتي نرش عادي إن ير وحوجا نو جود هذا صحيح عبد الرحمن وأن كوي ديولي من صحافة كتير أمر لأن يرد بشيء أي مويدين سؤال شاس سؤال قارئ واحد waxaan ku dhashay magaalada Dublin ama Liibayo Soomaaliya oo ku taala Jubbaland kismaayo ay hoos tagtaa halkaas odaga aabay booliska ahaa meeshaasaan ku dhashay aniga oo 3 jir ah baa hooyaday ay dalka adduunka tagtay hooyaday haday dhimatay waxa ila wareegay habar yaro oo iyada la dhasho 3 ah koolkoolin baan ku soo koray gaalka ayaa la ii soo qaaday gaalka ayaan ku soo barbaaray Puntland Jubbaland waa ka yimid muddo kadib waxaan isribalnay oo Jubbaland anoo qaan gaaray Jubbaland baa u dhalatay aad u tagtid dalkii markaa dib ugu noqday
ودلكي دad fiican weey laakiin anigu suugaanyahan baan ahay suugaantu waa inay raad leedahay dadkuna fahmi karo waxaan ka waayay luqadii af Soomaaliga ahayd oo aan Universal TV iyo aan uga bartay magaranaysaa BBC iyo VOA oo Soomaaliga ahayd hay macna saad yeeli la hay maxaa waa yarkaan ayto marka waxaan isiri waxay ii bixiyeen galti hada meesha cilmidaas leeyahay Jubbaland waxa laga yaqaanaa galti waxa loo yaqaanaa dadka reer mudug meelaha ka yimaado markii la yiraahdo dukaanka wax ka soo saar meesha oran laha kuma jirto wuxuu leeyahay kuma jidho ma jidhiyo waa jidhaa waxaan jidhi way soo qaban jidhay intii way mugto halkaas la leeyay luqadii baa iskeen weeyay maraan walaalahay isdirno maraan laga ashtakoodo intaan anu macnaha reer mudug indaday godeen wataa dib baa lagu soo celiyay hooyaday halkaasna saaxiib ku dhashay magaalada Galkacyo waan ku soo koray waa tahay waa yahay cilmi daadshay had iyo jeer waxaad caan ku tahay in majaajilooyin waxyaalo qosol badan sanadkan 2018 ee bilaabmaya maxaad sheeko ama majaajilo u haysaa dadweynaha ku daawanaya ee daafaha caalamka ku sugan waan salaamaya dadweynahayga qaaliga ah mar kale iyo mar saddexaad iyo mar afraad saaxiibayaashayda qaaliga marka aan sameeyo majaajilo dadweynaha qancin karto lagu qoso waxaan isku dayaa sheeko inaan xiro kadibna furfuro gabar ka timid dalka macnaha koonfurta ka timid oo dadka macnaha barakacayaasha loo yaqaan ayaa waxay u shaqeyn jirtay islaan reer muuga oo Galkacyo degan waxay aragtay islaantii u shaqeynaysay oo guriga u joogtay oo rubac sonkor iyo tusbax sii wadato salaada casar waana jimce seete xageed u socotaa markaas ay tiri islaamo dikrinayo oo mawlidayo oo ilaahay baryaya waan u socdaa bay tiri noo ku raacayaa waa raacdo islaamihii baa isdhex fariiso shaahi baa la karsado shaahi baa la cabay hadda waa la dikriyay waxa la leeyahay man dada sitoy man dada siti faadumoy man dada wali gabadhii raacday islaamta jaariyada ahayd earphone yar baa dhagaha ugu jiro cadcad tulbaab baa kor xiran moqto hindi baan u baxayo de yaa garanay earphone yaa kula maqla markaas gabadhii waxantay muusigii bay la haysaa moqto muusigii bay la haysaa marka waxa loo qabaa gabadhan inay dumarkaas oo dhan karaamo dheer tahay oo de hore inay taqaan dikriga ay ku dhalatayba markaas loo soo istaago la yiri maanday soo istaag ishaarada ku qabatay baa markaas ay tiri hee maxaa waaye markaas la yiri wixii ku ruuxay bal ragac nooga sii wixii ku ruuxay ha asal lahayd bal ragac nooga sii ha nagu dhufo baa leeyahay seeto ma ku dhufaha ha baa leeyahay xagay tiri ma ku dhufaha ha baa leeyahay hees hindi ay taqaano qalbiga ku haysay bay ku dhufo karisma kabuur heesay qaaday oo ma maqashay yesilsila he pyarika ye chalta rega waayahay qisadaas qisa cajiib ahayd dhinaca social media ama Facebook oo kale Instagram-ka Fiverr-ka maxaad ka samaysay iyaga saaxiib Facebook inta la gaarin ka hor Facebook wala soo shaqaynaa khad iyo waxa la galaa mobiiladana wala iska soo waca qof kastana wuxuu sitaa oo rag iyo dumar bakaar sahal u furan yahay ama lacag uu ku shuban karo iyo kaar kale oo ma garanaysaa uu ku dhunto oo de xilliga meelaha wax laga leeyahay ay dansadaan dadka kale marka waxa dhacday labadeedii kaarba waa laga soo wacay ciyaal baan ay soo wacay waxay leeyihiin lambarka naagti lahayd noo dhib baa leeyahay wariya aliya waxna dadkii ay soo imtixaamay ilaa lambarka la soo wacay labadii lambar oo dhan ma ahee waa mid kamid ah sahal u furan markii magac la baar lama helayo waxa la isoo waa nooca lixda ka bilowda waxa la isoo wacaa marka dambe go'aan waxaan gaaray keyga inaan shito magacaygu ku qoran yahay cilmi daabsi kii qofkii isoo wacana aan jawaabtu oo xaq u leeyahay siiyo program noocaas isku programiyay fiidkii baa la galay afsac fiidnimo gurigaan u sii socdo baan kaarka kala gashaday oon daartay nin ay ka daacad tahay oo gaari candamidle la yidhaahdo wado beerharano baabuurta xamuulka oo gobolka bari ka socdo nugaal u soo socda iyo xaaskiisii islay balaad booqati baa show laba lambar buu kala khalday keeyuu ku soo khaldamay naagtii idii buu soo wadaa wax ku dhici doona soo dhegeyso dhegtu inta saartay wiila waa nin gaari iftiimayo ku soo socdee lambarkii buu khaldo halow saanaa idhi halow waxaan ka baqaynay waa ciyaalkii inay soo wacaan lahaa naagta noo dhib markaasuu walaalow gabadhii lambarka lahayd ii dhib saana way qubaysanaysaa baan idhi ilaa ciyaalkii waxba u diyaarsaday sidii adiguna dee anugu waxaan gurigii baan dhex jiifaa wuxuu isir gurigaagii oo nin qubaysanayo islaantaada inay guriga la joogo wala xaalku okay ma furiin buu ku baaqi lahaa ninkii Kirishbooga baa u sheegay lambar baad khalday rag saanweeye isla hadiibna waa la soo wacay walaalka Allah hubi cilmi weligaa wax ma jeclaatay
ama jacayl ma kugu dhacay ama adigaba ma lagu jeclaaday صح ما سؤالها عن كاري أنا ودي شو تكلم عن كواي waay قفك بلو أدم وقت شعير كم مرمو هدا أرتقف ده أنا وحمد شعل هذا أنا وساس أنا ده هي ده هو يقف خراركم ملك هايو مال بوجودية waay إلا حاوي أنا استعلان شيء لكن قفك مركو وين هذا ويا أرق نضو ده أدي يسوق جارو يروح كوين بوجران كرايرانتو إني شعير كسدح نوعي هاي من هو شعير والله مانع midna waa kalgacal waa wax aniga adiga shacabkayga jecel idaawanaya naga dhaxeeya waay kalgacal bale waa kal iyo laab midna waa caashiq waa ka helitaan waay dhalinyarada hadda joogtimaha saa u jirtay waxa baabiyay waa caashiqi caashiq waa ka helitaan carabtu waxay tiraa alxub bacda zawaaj jacaylku waa guurka kadib waka haddaad carabkaa tiraahdo ayna sahara uba ximeeyey ilaan jacaylku ubax buu lahaye alatfaal buu ku leeyahay carruurtii carruurta indhahooda qurux badan islaamta ay ku tiraa ii qabo aan u gogley ubax weeydi indhihiis waa alcadiin qurux badan yahay jacaylka dhabtaa waa kan la isguursado kan ka horeeyana waa caashiq oo waa lagu baaba'aa halkaa iga geeyo hamburger iyo mushakil iyo bilaa la soo jiiraya oo lacagaa lagu marka caashiqa qofka gabadha uu jecel yahay ha ka dhaadhiciyo inay isguursadaan haddaan guur iman jacaylku waa dhimasho waay waxaan kaloo dadweynihii u faa'iideynayaa kala barta jacaylka dhabtaa iyo ka dhalanteedka idin kala sheegay waay waay ee aniga iyo aamin mar ma jirtaa aad gabadh jeclaatay oo dacas iyo waxaad ها وكوسو ولا ka ha xilli waxay ahayd dalku lacagtu iska timaado waay oo lacagtii la shaqeeyay iyo tii aan la shaqeynba oo burcad badal oran jiray sirgal jirta dalka haye markaasaan dee taarroona waan qaatay taarroona waan ka tagaa wuxuu la lacagay ninkii ku oranay halkaasaan ka keenay waa mid ka ogeed galka iyo miisla ahaa waxaan sameeyay gabar baan jeclaaday waan u soo badhigtay jacaylkeyga waxay tiri warka shacab ka qaad macnaha warkaaga caddeynaya waxa waa khiyaali ha iscadee ha ishaan ka arkay iyo sheedan ka raacay ma jirtee waay nin aan garanayo oo musician ah oo music yar oo lix xariga watay oo gitaar ah baarinaada ii dhiib hees hadda aan samaynayo ilan goobka hadal baan ahay heesta aan ku hagaajiyey laxankee ninka wuxuu saaxib gabadha anaa adiga kaa jecel anaa birima ah birimada miyaa tahay ha weligaaba ahoo baan ku yidhi waay waan tegey cadda dheer baan soo qaaday kaba jambal ahaan qabay kabihii jambalkaa waxaan ka dhiganayaa music macnaha dadweyne waxa u sheegaya in macnaha haddii aad dhibaatootid aad xallin kartid waxa ku haysta waxaan idhi indhahaygan basaasay barrambam kabaha markaanu ka qaado barran beeleda tii kalena bam bay kusoo waa jambale indhahaygan basaasay barrambam baalashooda ilmeeyey barrambam bidhaantii quruxdaaday barrambam u barooranayaane barrambam alla beer adkidaayey barrambam biilan beer adkidaayey barrambam intii aan ku baryaayey barrambam bad haddaan u socdaalo barrambam oo burcadda aan ku biiro barrambam baari baad noqon lahayde barrambam alla beer adkidaayey barrambam biilan beer adkidaayey barrambam intii aan ku baryaayey barrambam bad haddaan u socdaalo barrambam oo burcadna aan ku biiro macnaha haddaan lacag helo baari bay noqon lahayd waay bilan been saaxiib marka ها gabadhii marka gabadhu may kugu dhaga adeeg way ugu dhaga adeegtay waxay tiri ninkan anigu ma jecli dhalinyarada waxaan ku dhageysta listen to me meel koobashin bay meesha ahayd iyadaana macnaha meherada u shidnayd oo waa iska meherad shidan oo dadku shaaka abo waxaa inay jecesha waxa lagu ogaanayaa erayo suugaaneed baan ku akhrinayaa markaan ku akhri markaasaan ku dul sameeyey erayada markaan akhriyo gabadhaas haddii bakeeri jibu weydo ima jecle waa runteed anaa waalan golka fuul bay ahayd marka golka fuul waxaan idhi sugaanta waxa ka mid ahaa waxaan idhi dhegeysa abaayo dhacda gabayga iskama dhihin hadduu igu soo dhacay baan idhi caashiqu waa dhab baan idhi haddii aan wax loo dhimin waa wax aad u dhaga fudud dhimashaduna xaq weeyo haddii aan wax loo dhigan waa nagu dhib iyo naar ee haddii wiil dhalinyaro ah adiga oo dhaxamaysan kursi aad dhigatay meel dheer intuu kuula dhowaado oo dhinacaaga uu fariisto oo uu dhoolla caddeeyo oo adna aad ku dhowrtay indhahaagan dhayda la moodo baan ilaa waa dhamacdaasi inta uu dhakafaaro dhulkuna ula wareego oo dhunkasho aad u macaan dhakab uu kugu siiyo ma dharbaaxi lahayd su'aal ma saarna shaah ii dhiib baan shaahi bay doontay afar bakeeri bay jirtay hal maayo dhalinyaradu waxay dhawoo qaybiyaa wuxuu sheegay
الله إلهي وحبا كدعي علمي بل واحد اسبربردhig ku samaysaa fankii hore ee waayadii hore hobolladii jiray iyo fanka waqtigan ee imika socda saaxiibkii xasan maal fankii hore wuxuu ku siinayaa talooyin badan waxaa ka mid ahaa ilaan wiiq sakaariyo way sokeeye ma haraan marka waxaa ku qabanaysa u tur ayeyda waa kugu soo dhacaysa dee kuwa haddase male waxaa kugu soo dhacaysa wax la waayey geelow ruux waalan bawdla meelaad u socotaa laga yaaba inay kaa celiso maamada ayada ah oo tiraahdo kan waad ka noqo kuwa hadda jiraa wax tala ama leh markaan tusaale ku soo qaato magaalada galkacyo tuunin baa soo wacay wuxuu yiri heesaan leeyahay waad iga bedeshay nin baa yiri waxaan ku walaal waa habeen ramadaan markaa haddaan hees kaa bedelay bal heesti erey ka soo qabo ereyo ka soo qabto xaritan hees meehe waa sheekana ka sii darna waa sheeke berley waa sheekada caruurta kuma waxa markaa fanaan faarax murtiile baa loo yaqaan markii aan arkay inuu is heesta magaceeda yar laakiin waxa u bixiyay heesta cayda jabigeedu wax ka sheekanaysa baahi marka waxaan u bedelay aanoo iid yar soo galay iidii yarayda macaan ramadaan ku xigtay oon surwaal yar dayday show shaar yar maan helin oo xasiid yar maan dhigan ilaa waa iida waxba la cunaya mogta oo habar yar may wicin habar batay guriga imow oo gambar yar may dhigan oo digir yar may gurin markii digirtii aan cunay showgaas yar baa kacay gaas triig baa laga qaadaa baashaan haddaan biyaha waa loo cabin cilmi waadigan fanaaniintii yaryaraayee dambe ee weliba kuwooda ragga ah ayaad imika hees ka midoo faarax murtiile leeyahaad beddeshay miyaan lays odhan karin gabdhaha laftooda ayaa ereyo khaldan loo dhiibaa iyaga maxaad ka tidhi rag iyo dumarba dadka hadda jira ee waayaha cusub loo yaqaano fankii way iska jiireen waa muusig bay heleen iyo qalabo waa la jiiray tusaale marka kusoo qaato hees walba waxay leedahay qayfiyad iyo qaabay u socoto dadka fanki ma baran qof kastoo qurux doonaya wuxuu iska dhigayaa fanka qurux buu ka raadinaya xarafkii hore la dhigi jiray oo sugaantu inay siinley tahay inay miinley tahay baa gadaal la dhigayaa day waxaa la odhanayaa saaxiib anigaa ku jecel sax xaadii baa gadaal la geeyey dartaa caashiq baan la ahay kax xaadii haddana gadaal baa la geeyey haddaad itiraa mar uun bax xaadi wataa jirkaba dhiid baa ka oran shax xarafkii qayfiyadda qofku raaci lahaa heesta xaliyad iyo leedba waa laga tegey xaggaa la mariyey gadaal aakhira la geeyey waxaan haddii qaabkan aad ka dhigtaan sugaan Soomaaliyeed qof kasta samayn kara maalintii 7 kun oo heeso baan Ingiriiska u diri lahaa waxaan dhihi lahaa baan idin oo macnaha noqon karta soo dartaa ciil baan lahay kax maaha waxa la oran karaa day anagoo ah naf waa facban gadaal dhigay oo marayna raf oo aan nahay isku dhaf ayaan aragnay laf waa hilib geela waxaan u galay saf nin baa wuxuu isiri daf gacanta waxay tiri kaf waa laga jiray gacanta suugeed buu isiri taf inta cararay lug baa tiri kaf gaarigii baa yiri xaf waxaa naga soo haray af macnaha wax ma nacin baan ka wadaa oo laftii saas ugu dhaaftay waxaa kaloo jira macnaha heesaha noocaas kale waan ka samayn karaa intaan rabo oo macnaha cid oo farsamo ah laakiin waxaan oran lahaa fanaaniinta Soomaaliyeed ugu baaqaya oo asxaabtayda aanu manidciye heesaha fanka Soomaaliyeed waa ku ciyaarteen oo godob ka gasheen oo dhaqankii waa laga raaci jiray waxaad kale ku samayseen idinkiina waa isku disheen oo waxaad kala garan weydeen buunbuunintii iyo xeeradii iyo sarbeebtii ilaa suugaantu saddexda nooc mar suugaantu waa sarbeebo inta suugaan lagu soo tiriyo baa suugaantaas waa antiyo dawlad iyo arrimaha siyaasadda bay ku jirtaa waxa la dhahaa sarbeeb midna waa buunbuunin oo wiil baa gabar wuxuu ka dhigayaa inay gabadhaas qaali tahay markay maqan tahay magaalada dhan mugdi weeyo way madowdahay waa shirkadda korontada gabadhu waa tan labaad waa buunbuunin waa xayisiin tan saddexaad oo dhalinyaradu hadda u badan yihiin oo geerida iyo dhibka iyo aan isleeyahay afkooda isku dileen ama ay ehelkood ku dileen waxaa la dhahaa yam xeero waa qabri galwey abwaanin horaana macnaha anu aan ka dareemay dhaqankaas kuwa hadda jirana waa u dhiibaan dhalinyarada waa ku mishimaan waxaa ka mid ah milyuumaadka mootan ninkii qaaday cabdinaasir macaan allah naxariisto waa dhintay
asagay heesta ku dhacday isagaa isdiiwaan geliyey obiga aakhira isdhigay safar baa la tegaya cabdinaasir macalin wuu qaaday waa ku geeriyooday wiilkan hadda la yidhaahdo dayax dalnushe hees baan ku yidhi heestaan adaa isku dilay wuxuu yidhi cimrigu waa kooban yahay waa 40kii baa ku jiraayo caadi naftuna ceel bay dhexdii canaanta ka soo dirtaa usbuucaas aan u sheegay jooji aan idhi usbuucii ku xigay anaa wax iska sii wata hawshii usbuucii ku xigay waxaan daawaday hees isaga uu qaadayo muusiga dhextaalka markuu soo galo meeshuu ciyaari lahaana waa nacaayaya annaga daawanayna shacabka hadday buu leeyahay balqoodha iyo xerada iyo xiniinta fanaanka waa kii lagu dayan jiray fanka soomaaliyeedna horumar u lahaa haa laakiin kanise inta muusiga socdo waxaa laga yaabaa shacabka gabar ama wiil ku dhex jira inuu xumaynayo shacabkii oo dhan macnaha waxaa laga daawanaya aaladda internetka waayahay ugu dambayn cilmi maxaad u soo jeedinaysaa ama aad kula talin lahayd aada ugu baaqaysaa fanaaniinta iyo dhammaan dadweynaha soomaaliyeed ee dunida ku kala filiqsan dadweynaha soomaaliyeed dhammaantood horta waxaan farayaa u sheegayaa in la isku duceeyo ducadu waa assalaamu calaykum weli ma arag madaxweyne soomaaliyeed oo inta soo istaago meel maslax ah dadkii oranaya assalaamu calaykum nabadgelyo korkiina haato oo la yidhi wacalaykum assalaam waa la isku duceeyey mar haddii duca lagu kala tegey soo arrintu khayr ma noqoteen arki maysid qof kasta wuxuu la soo taagan yahay ajandaha shirka uu ku leeyahay iyo xariiqin jiitin ama firqa ah marka waxaan oran lahaa soomaalida mas-uulkan idinkaa dooranaya haddaad dabaqa dejin lahaydeen iyo haddaad buula kashiito geyn lahaydeenba idinkaa doortay ilaahay qur-aanka wuxuu ku subxaana wataala haddaan xuso walow basadallaha risqa licibaadihi labaqow fi lardi haddaan addoommadeeda aan u badin lahaa risqa way qooqi lahaayeen kuwa badan aan waxaysan baa baawur dhiiqa saa kugu sayran lahaa intay gaari leela calawi soo qaataan oo ilaahay wax siin lahaa soomaalidu marka ay suugaanta ka warramayso dhaqanka iyana waxay yidhaahdeen waydaan dareemine dadka kan dherga u daran dabaq dheer baad seexisay asagii oo meel dabaqyaaba hadda waa aragtay muqdisho iyo dabaqyaa waxaa way madaxdu degan tahay halkaasaa shaxaadka iyo lacag lagu kala qaadanaya sida turubkii shacabka hoos imanaya oo lacagta ka helaya ganacsigana nimankaa dhibka loo geysanayo bay qayb ku qaadanayaan waa dhimasho shacabku wuxuu dhimanaya isagoo saan ah inuu salaad ku jiray oo kale ah qaar baa waxay dhimanayaan iyaga oo magaranaysaay karfanti qabo sida khamiiska oo kale iyo qaar baa waxay dhimanayaan iyaga oo naas nuujin ku jira oo ilmihi yarkaa naas siinaya way dhacday iyana shacabku waxaan ugu baaqayaa qofka mas-uulka ah isagu idin ma leh ee ilaah baa idin leh intaad ilaahay ka cabsataan qofkaad dooranaysaan intaad cayi lahaydeen kadib mas-uul fiican doorta oo ummadda hagaajiya iska hubiya waayahay cilmi yaad halkan ka salaamaysaa ugu dambayn eheladaada asxaabtaada maadaama sanad cusub ka salaamaya hooyadeeda qaaliga ah ee soo bartay diinta islaamka isoo aabiisay dharkana ii dhaqi jirtay in badan ilaa iyo haddeerna caamada ii dhaqdayba agteeda taal oo aan ku tukado hooye macaan waxaa leeyahay salaamay boqolkiiba waxaa leeyahay hooyada magaceeda abshira faarax gaas waxay ku nooshahay magaalada gaalkacyo hooye waxaan leeyahay sanad wacan oo wanaagsan sanadkan sanad nuureed oo wanaagsan allah noogu dhigo noogu soo ducee waxaan kaloo salaamaya asxaabtayda facebook iyo youtube baraha internetka sida aasiya waxar iyo caano iyo maxamed amoore waxaan kaloo salaamaya wiil dhalinyaro leeyahay xamza oo magaalada gaalkacyo ku nool magaalada garow ku nool yahay waxaan salaamaya nuux muuse burjad ah saaxiibkii qaaliga adiga ila kulmo saaxiibkii qaaliga safarka dheer ii soo galay ee isoo dhaweeyay xaliya magacaaga xasan maal waan ku salaamaya dhalinyarada kale haddana daawanaysa kaamin maal kulli waa salaamaya madaxweynaha dowladda puntland cabdulle maxamed cali gaas iyo dhammaan inta madaxda ah ee wanaagsan ee shacabkooda wadada fiican u horseeday waan salaamaya dhammaanteen waxaan leeyahay soomaaliya mucaaradnimo iyo qaylo iyo buuq waxa ka fiican marka hore inaad doorataan nin xaq oo fiican oo aad aragteen ninkaasi inuu gurigiisa degayo uusan dabaq degayn ninku haddii gurigiisa ka tago dabaq degayo soo idinkaa doortee u dulqaata waxaan dadweynaha ogeysiinaya u sheegayaa qof walba oo qiso jacayl qabsato lambarkayga hala soo waco sidaasa waxaa ii suuragal inaan ka sameeyo ereyadaasna qofkii haddii aan ingiriiska dawo u noqoto qofkii kale oo qalbigiisa ay wanaagsanaato aad iyo aad buu u mahadsan yahay cilmi daadshe barnaamijka waxaa isku dubirrida ka ahaa oo habeeyey farsameeyey duubay nuux muuse burjeed sidoo kale waxaanu u mahad celinaynaa xildhibaan cabdilqaadir mukhtaar soodaani maxamed cabdi xasan boosh oo igu wehelinaya safarka aanu ku nimi magaalada garoowe iyo sidoo kale cabdiladiif oo barnaamijka qayb ka ahaa dhammaantiin dhammaantayo anigoo xasan maal lidara waxaan idin leeyahay sanad wanaagsan